السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا سلوى ومقال عسوية كنا كنتات كذا كبدا مقال كان ما انت أصحابي وحن كهاد للدونا يعني موضوع عادي هذا حساسية موضوع لقى يابو انت تقولنا نسخ خلافه موضوع لقى يابو ان قف كستمر يجلس كلوك الدنيا هي لكن انت انا موضوع بلابين وحن دوني في اف سي دكتور يعني أصحابي مقال كان حكى كهاد ليا طبعا كقحوط وقت حاضر كان وهذا كبدا عكتا يعني kooxaha waqti xaadirkan xilli ciyaareedka horreeyay yani qaab ciyaareedkooda natiijooyinkooda ciyaartooyada haystaan waxyaabahaas qiimeyntooda waxyaabahaas oo dhan marka la eego ayaan ka bees garanaya yani inaan mawduucan ka sameeyo ama maqaalkan aan ka sameeyo tobanka kooxood ee yani dunida kubadda cagta ugu adag kama hadlayo yani taariikhdii hore kama hadlayo yani taariikhdii dhexe kama hadlayo yani xilli ciyaareedkan gaar ahaan kama hadlayo bishii ugu dambeysay yani wax cayiman kaga hadli maayo sidaa darteed qof kasta intaanu cadif noqon oo aanu ka xanaaqin booskan kooxdiisa geliyey ama asal ahaanba inaanay kooxdiisa booskiisa aanay ku jirin laba mid waana niyadda ku haysaa waata koowaad ee ah in aan ka qaadanayo yani natiijooyin aan ka qaadanayo qaab ciyaareed aan ka qaadanayo yani aan kasoo qaadanayo muddooyinka ugu dambeysay kooxdaasi siday ahayd waata labaad waa ra'yigayga khaaska sidaa darteed qof kasta ra'yigiisa khaaska lagu ixtiraamo waa mid khasaba waa mid la mudan yahay waa mid qof kasta ay tahay ra'yigiisa gaarka uu soo cabiro qof kasta xor ayuu yahay laakiin ra'yiga khaaska markaan leeyahay waxaan doona ku hadli maayo yani niyaddeeda ka keeni maayo kooxdan jecel ay ku dari maayo kooxda aanan jeclayn ka saari maayo waxa weeye yani waa proven fact waxaan ka hadlayaa wax cad afif dheer ayaan sii galay laakiin asxaabay muuqaalkeenan maanta waxaan kaga hadlaynaa tobanka kooxood ee waqti xaadirkan ugu adag kubadda cagta gaar ahaan shanta horyaal ee ugu waaweyn qaaradda Yurub soo dhawaada asxaabay idinkoo mahadsan kooxda kaalinta ugu hooseysa naga soo galaysa ama kooxda tobnaad ee ra'yi ahaanteeda ugu adag kubadda cagta waa kooxda Antonio Conte ee Inter Milan haddii aan eegno yani labadii xilli ciyaareed ugu dambeysay haddii aan eegno xilli ciyaareedkan waxaad moodaa in kooxdani ay ugu dambeyntii ay wax dhisayso kadib xilli ciyaareedyo badan oo ay kooxda soo mareen tababarayaal yani losers tababarayaal aan kooxda gaarsiin heerkii ay doonayeen tababarayaal aan sameyn wixii la doonayay ama laga filayay inay sameeyaan aan sameyn ugu dambeyntii waxa yimi Antonio Conte waxaana ka horreeyay Luciano Spalletti oo uu ka mid dhisaya koox u timaada ama soo gaadhay tartanka Champions League laakiin taas kuma fulinayeen taageerayaasha iyo maamulka kooxda Inter Milan waxay doonaysaa in ay tartanka Champions League heerar hore ay ka gaadhaan waxay doonayeen inay u tartamaan horyaalka waxay doonayeen inay ku soo noqdaan booska lagu yaqaan kooxdii weyneed Internazionale Milan kooxdii Jose Mourinho wadan jiray yani kooxdii Roberto Mancini haysan jiray yani waxay doonayeen in kooxdii laga cabsan jiray Europe ay ku soo laabato step ayna dhigi kartaa uu dhisay maanta Antonio Conte oo joogay hal xilli ciyaareed ma dhameystiran Antonio Conte joogay laakiin farq weyn ayaa laga dareemaya kooxda يعني ciyaartooyo tayo leh ay ku soo daray ciyaartooyo caalami ah ayaa jooga maanta uu yaraan wax jooga saddex ama afar ciyaaryahan oo world class oo kamid ah yani 20 ciyaaryahan ama 30 ciyaaryahan dunida ugu wanaagsan oo ay hogaaminayaan Lukaku iyo Lautaro Martinez sidoo kale Brozovic khadka dhexe ku jira Milan Skriniar oo difaaca sadarteed kooxda Inter Milan raay ahaanteeda waa kooxda tobnaad ee waqti xaadirkan kubadda cagta ugu adag kooxda sagaalaad ee ka horeysa waa kooxda Manchester United yani Manchester United tii aynu naqaanay Manchester United taariikhiga ahayd oo mid kamid saddexda kooxood ee dunida ugu adag taasna laba qof isku khilaafmayaan oo mid kamid shanta kooxood ee dunida ugu adag taasna waa mid waadix oo taala laakiin Manchester United 3 sano kahor ama 4 sano kahor ma yahayn xitaa kama mid ahayn tobanka kooxood ee dunida ugu wanaagsan yani dhismahan maanta uu dhisayo tababare Ole Gunnar Solskjaer waxaad moodaa in Manchester United step ugu soo celinayso booskeedii lagu yaqaanay Manchester United waa kooxda ugu guuleysiga badan leh horyaalka Premier League 20 jeer ay ku guuleystay horyaalka dunida ugu adag yani taasoo kale waxa ka dhigi kartaa mid kamid kooxaha dunida ugu wanaagsan haddii aan ahayn kooxda dunida ugu wanaagsan kooxda ugu guulaha badan leh horyaalka dunida ugu adag ama horyaalka dunida ugu wanaagsan taas micno weyn ay sheegaysaa koox saddex jeer ku guuleystay tartanka Champions League koox soo saartay ciyaaryahanno badan oo heer caalami ah ku guuleystay Ballon d'Or ku guuleystay abaalmarino khaas ah yani Manchester United iyo ka warrami karaayo heerkii hore ay soo gaadhay laakiin maanta waqti xaadirkan dadka qaar laga yaabay inay gudiidaan xitaa inay kaalinta sagaalaad ay u qalanto dadka qaar waxay oranayaan Manchester United ma qalmayso in ay soo gasho 10 kooxood ee maanta dunida ugu adag waayo horyaalkooda ay kaalin hoose kaga jireen kaalinta shanaad meel wacan way soo maray laakiin waxaan qiimeynaya yani dhismaha kooxdan ay dhisayso yani xilli ciyaareedkii ugu dambeysay waxay gaadheen wareegga sideedda walow aynu ogsoonahay sida ay ku gaadheen iyo qaabka liita ay ku soo gaadheen xilli ciyaareedkii ka horreeyay Manchester City ay kula tartamayeen horyaalka walow Manchester City ay aad uga wanaagsaneed yani waxa soo dhan marka la soo eego ciyaartooyada world class ee maanta ay keeneen hadii tahay Harry Maguire hadii tahay gooliyaha David De Gea Aaron Wan-Bissaka yani Paul Pogba Bruno Fernandes Marcus Rashford yani runtii koox aad iyo aad u qurux badan ugu dambeyntii dhisay Ole Gunnar Solskjaer oo raay ahaanteeda markay inuu yahay tababare ka wanaagsan dhammaan tababarayaashii soo maray Manchester United kadib Sir Alex Ferguson taas waa raayayga marka Manchester United marka la eego yani bandhigoodii xilli ciyaareedkii ugu dambeeyay walow xilli ciyaareedkii ugu dambeeyay 2018 ay liiteen oo tababare Jose Mourinho ay ceyriyeen haddana waxaan doonaa noocan ma inay ku soo laabanayaan heer yani ay wuxuu ay dhisayaan oo ay in yar ay ka soo wanaagsanayaan ama ay ka soo laabanayaan qaabkoodii hore lagu yaqaanay kooxda kaalinta sideedaad ku jirta waa koox kale ka ciyaarta horyaalka Premier League waa kooxda Blues ee Chelsea
Chelsea iyo Manchester United yani xaalad ahaan ma kala wanaagsana way soo xaalad u yihiin laakiin kooxda Chelsea way ka joogteen badan tahay kooxda Manchester United xilciyaareedkii ugu dambeeyay kii ka soo horeeyay kooxda Chelsea ka wanaagsaneed kooxda Manchester United taasna wuxuu qalantaa in kooxda Chelsea ay geyso inay noqoto mid kamid ah 10 kooxood dunida ugu wanaagsan waana mid kamid ah kooxaha aqoonta ugu badan leh yani sida loo ciyaaro kubadda cagta waa koox mid kamid ah kooxaha ugu yaqaana sida loo guuleysto koox ayman sida loogu guuleysto yani horyaalka labadii xil ciyaareed ay ku guuleystay kooxda Chelsea horyaalka Premier League 2017 Antonio Conte kula guuleystay iyo 2015 kula guuleystay Jose Mourinho labada jeerba ma ahayn kooxdii horyaalka ugu adkeed laakiin labada jeerba waxa ay sameeyeen ama ay maareeyeen in ay ka guuleystaan kooxaha kula jira horyaalka oo ay kana guuleystaan horyaalka taas wuxuu sheegaysaa in kooxda Chelsea ay tahay an ra'yi ahaanteeda ra'yiga khaaska ah wuxuu dhahayaa Chelsea waa kooxda ugu aqoonta badan leh horyaalka Premier League yani horyaalka Premier League waa kooxda ugu yani guusha taqaana waa kooxda ugu qaab ciyaareedka taqaana waa kooxda taqaana sida habka loo guuleysto waa kooxda taqaana sida loo akhristo kooxaha kale la ciyaarayso yani haddii Arsenal noqoto haddii Liverpool noqoto haddii United noqoto way taqaana kooxahaas oo dhan sida uu akhriso uguna guuleysan lahayd ruuxantii taasna wax lagu amaano kooxda Chelsea haddii noqoto Abramovich taana waxa la dhigi karaa waxa keentay tababarayaasha bedelay Abramovich muddooyinka 10 sano ama 15 sano ama 16 sano ugu dambeysay tababarayaasha badan uu keenayay mentality badan iyo aqliyado badan ay ku soo darayaan kooxda taas oo ka caawinaysa kooxda in jiil kasta uu soo kacaya inuu aqliyad kasta la qabsan karayo taas ay ka dhigaysa kooxda Chelsea koox aan laga filayn in sanadada dambe aanay digeen yani waxa ay sameeyay tababare aan waayaragnimo lahayn يعني waxa ay sameeyay tababare aan kubadda cagta Yurub aan heer ka gaarsiisin waxa ay tababare aan waligii hal koob ku guuleysan hadana waragna heerka ay marayaan yani kaalinta afraad ay kaga jiraan horyaalka Premier League yani wareeg 16 ay soo gaareen tartanka Champions League yani Europa League ay xilciyaareedka kula guuleysteen tababare la dhigi kariyo ku fashilnaa kooxda Chelsea Mauricio Sarri ruuxantii tasadana Chelsea ka dhigeen mid kamid ah kooxaha dunida ugu adag garanay wax kale oo ka dhigi karaya kooxda ka horeysa ama kooxda toddobaad ee soo galaysa liiskeena waa kooxda Atletico Madrid waa mid kamid ah kooxaha ugu muxtaramsan kubadda cagta waa mid kamid kooxaha laga cabsado kubadda cagta oo mid kamid ah kooxaha ugu adag uguna raganimada badan leh kubadda cagta waqti xaadirkeena Diego Simeone kooxda uu hogaaminayo waxa la dhigi karaa waa askar hindida cascasay loo yaqaan Roque Blancos waa koox aad iyo aad u muxtarama kooxda doonto taageer laakiin waxaan ogahay inaad markasta kooxdaada ixtiraamto yani qaabka ay ciyaartoyda u dhisaan yani qaabka ciyaartoyda u horumariyaan yani qaabka ay u sameeyaan koox iska celin karaysa ama la tartami karaysa kooxaha ugu waaweyn qaaradda Yurub haday noqoto xil ciyaareedadii hore waxay ka guuleysteen koox Barcelona oo kale Bayern Munich oo kale Chelsea oo kale Milan oo kale Juventus oo kale yani kooxdu waa koox ka guuleysan kale koox kasta hadana yani lacag badan ma galiyaan sida Manchester City United Paris Saint-Germain Real Madrid Barcelona Chelsea Liverpool koox kasta wada kooxaas lacag u galiyaan kooxdan lacag uma galiyso yani ciyaartoyda ay lacagta galiyeen oo ciyaartoyda ku fashilmay ay la dhigi karaa kooxda Atletico Madrid waxa tusaale kugu dhow inay ku jirto xil ciyaareedkan mid kamid ah xil ciyaareedada ugu xumaa barbarooyin badan ma galiyaan qaab ciyaareedkoodu qancis walaha ciyaar kasta yani Jan Oblak ayaa la baxsanaya oo guusha u keenaya hadana waxay ku sheegaysaa taasi in ay ka saareen koox la dhigi karayo koox maanta Yurub u adag Liverpool ayay guri iyo dibadba ay kaga guuleysteen labada ciyaarood tartanka Champions League wayna ka cirib tireen taas ay ku sheegaysaa yani heerka ay gaarsan tahay awoodda iyo subcadda kooxda Atletico Madrid kooxda nagu xigta asxaabay yani hadii aynu koox kasta aynu si mudawalo aynu dheer uga hadalno waqtiga aynu ugu dheeraanaya si muuqaalka ugu dambeysay 18 daqiiqo ay noqday saas kale ma doonayeen inuu noqdo kooxda inagu xigta ee kaaliiskeena soo galaysa kooxda lixaad ee ugu adag maanta Yurub waa koox dad badan kadis ku noqon doonta waa kooxda Real Madrid ee hogaaminayo Zinedine Zidane dhigayso inta aanad xanaaqin ama safta aad la boodin kooxda Real Madrid maxaan u arkaa in ay heerka hoose ay kaga jirto waayo waxaan ugu arkaa tan iyo markii uu Zinedine Zidane ka tagay xitaa xilciyaareedka ugu dambeeyay Zinedine Zidane soo qaaday 2017 ha wax ku guuleysan tartanka Champions League ha waxay galeen afartii kaalmood ee sare lagu soo baxayay tartanka Champions League xilciyaareedka xiga haddana kooxda Real Madrid tan iyo 2017 may soo bandhigeen qaab ciyaareed nool oo aan fici karayna kamid noqoto kooxaha dunida ugu adag waayo Cristiano markuu tagay kooxdu ma helin bedelkiisa saxda ah natiijooyinkiisa saxda ma keenin lama heshiin taageerayaashooda yani tababarayaal awoodo inay bedelaan Zinedine Zidane ma keenin yani tababarayaal awoodo inay bedelaan Zinedine Zidane ma keenin taas waxa ay kooxda ka caawiso in kaliya inay hoos u dhacdo kooxda Real Madrid xil ciyaareedkii Zinedine Zidane Cristiano Ronaldo ay ka tageen wuxuu mid kamid ah xil ciyaareedadii ugu xumaa waxa ka baxay wareegga 16 ee tartanka Champions League horyaalka waxa ay ka quusteen bishii January bishii koowaad ama bishii labaad Copa del Rey waxa ka baxeen bishii labaad yani waxa ku sheegaysaa kooxdaas inay aad u fashilantay xil ciyaareedkan uu soo laabtay tababare Zinedine Zidane waxa uu agtay koox sidii hore dhaantay laakiin kuma noqon qaabkii hore aynu kala baranay yani Real Madrid standardka ay inoo dhigtay inay ku guuleysan karto saddex xil ciyaareed isku xigta tartanka Champions League ayaana tusay inay ka yeeleen yani standardkan ama xaaladda nimka ay ku jiraan ay tahay mid maqbuul ama laga yeeli karayo sidoo waxa la dhigi karaa standardka iyo mustawaha Real Madrid u dhigtay kooxaha kale dunida ayay keenaysaa in Real Madrid aan laga yeelin xil ciyaareedkan ku guuleysan kooxda Real Madrid waxa la dhigi karaa xil ciyaareed ay fashilan tahay koox badan oo liiska ku jiraana xil ciyaareedo aan wax koob ku guuleysan la dhigi karo xil ciyaareedooda ugu wanaagsan taas ay ku sheegaysaa yani mustawaha kooxda heerka ay gaarsan tahay
sidoo kale raay ahaanteyda kooxda Real Madrid kaliya ma aha kooxda aan u arko inay kaalinta lixaad ay u qalanto sidoo kale Bayern Munich ayaan u arkaa iyaduna inay u qalanto kaalinta lixaad in ay la qabsato kooxda Real Madrid waayo kooxda Bayern Munich waa uu awoodi waaya ama uma qalanto inay geeyo kaalinta hoose ama tobnaad sagaalaad sideedaad sidoo kale waxay noqotay in labada kooxood mid ahaan meesha aan ka saaro kooxda Bayern Munich aan ka saaro ama Real Madrid aan ka saaro laakiin labada kooxood meesha way wada qabsan kareen kaalinta lixaad labada kooxood way ku wada jiraan Bayern Munich iyo Real Madrid Bayern Munich asxaabi wax badan laga hadlay ma jirayso waayo iyadu kooxda waxa weeye waa koox horyaalka talisa waa koox waqtiga ugu liidato ku guuleysto horyaalka Bundesliga waa koox waqtiga ugu liidato gaadha wareegga state ee tartanka Champions League laakiin xilciyaareedkan waxay cayriyeen tababarahoodii Niko Kovac waxa aad moodaaba inay qaab ciyaareedkoodii soo ceshadeenba kadib cayrintii tababara Niko Kovac iyadoo tababarahan cusub ama tababarahan halkii sida temporary-ga ama muwaqadka u haya uu raantii ka shaqo wacan yahayba Niko Kovac oo kooxdii ciyaarta wanaagsan ay la ciyaartay Chelsea horyaalkii waxa la wareegtay kaalinta koobaad kala saranta ay la wareegtay sida darteed kooxda Bayern Munich waxaan u arkaa in ay u qalanto inay la qaybsato kaalinta lixaad kooxda Real Madrid oo rahayantan oo arkaan labada kooxood maanta ay sameeyeen 50-50 ay yihiin sidoo kale ay ka wanaagsan yihiin kooxihii la soo tiriyay kana liitaan kooxaha kaalmaha sare ku jira ee liiskiina inuu jira waxaan soo galnay asxaabi shanta kooxood ee ugu adag Yurub shanta kooxood ee dunida ugu adag shanta kooxood ee raay ahaanteyda Cabdiraxmaan Yuusuf ahaanteyda ugu adag waqtigan kubadda cagta kooxda shanaad ee liiskana soo galaysa waa kooxda Juventus ruhantii ku jirta qaab wanaagsan Juventus qaab ciyaareed Juventus xilciyaareedka hore ka wanaagsan tahay Juventus 10kii xilciyaareed ama 9kii 8 xilciyaareed ugu dambeysay xilciyaareedkan qaab ciyaareed ahaan ay ugu liidataa natiijo ma aha qaab ahaan ay ugu liidataa waayo tababar Mauricio Sarri iyo ciyaartooyadii ayaan isla haysan tababarihii iyo ciyaartooyadii ayaan isku fikir ahayn waan fahmi karnaa sababta in koox urku haystay tababar cayman waqti badan oo haystay way adkaanaysaa marka la keeno tababare boqolkiiba boqol liid ku ah fikradii uu aaminsanaa tababarihii hore in aad ciyaartooyga ka dhaadhiciso fikradaha cusub oo fikradii hore uu iska ilaawo waqtigeeda ay qaadanaysaa waliba taa maxaa dheeraaday in Mauricio Sarri aanu soo iibsan ciyaartooyadii aan ficil lahaa ama u shaqeyn lahaa tacticadiisa iyo kubadiisa taas ayaa keentay in Mauricio Sarri uu la cabto kooxdiisa haatan ee Juventus laakiin Juventus marna ka yeelimayso taas inaanay ahayn mid kamid kooxaha dunida ugu adag Juventus waxa wareejidana ama macquulba ah oo dhici karaba ah iyadoo qaab ciyaareedka ku jirta inaad ku guuleysato tartanka Champions League way waxay Cristiano Ronaldo way waxay khibradii ku filneed way waxay haystaan tababare tactic ahaan u guuleysan kara tababare kasta oo maanta kubadda cagta jooga sidarteed taasan Juventus uga dhigay ama ugu horreysay waxa badan oo dadka qaar u arkaan inaanay u qalmin in ay ka horeyso laakiin raay ahaanteeda Juventus way ka wanaagsan tahay Real Madrid Atletico Madrid Chelsea iyo Man United kooxahaas oo dhan way ka wanaagsan tahay waana mid waadaxa waxay aan sababtan ugu doortay waayo qaab ciyaareedka ay joogtay 8 sano ama 9 sano ugu dambeysay ayaa u shafaaca qaadiya maanta ama xil ciyaareedkan ay liitaan inay ka soo qayb galaan 10 kooxood ee ugu adag dunida kooxda ku xigta asxaabay muuqaalkeena maanta ama kooxda afraad ee ugu adag dunida waa kooxda horyaalka Faransiiska ka arrimisa ama ka talisa ee PSG ama Paris Saint-Germain dadka qaar laga yaabaa in ay diidaan taas oo yiraahdaan kooxdan wareeg 16 kan dhaafi kareen ma kooxda aan awoodi kareen in qaab ciyaareed مقنعة أما كقرعية أي صوبر تمرك وحاول لا يارس أيضا ليه هالكاس أولا مرك هرو سنة كم ورد فيه وريق ليه طبعا كوريق استدعي قاعد بروس دورتموند أيانا كرهبين عيار ضمب أما عيارتي اللي هو عياري بارك دبرانس عيار يدون سنة صوبر دقين وقدمتنا طابري عيارتي اسفهمية أي إصلاحين العيارات كان أنا الشخصية الرأي هانتي باريس جير ومد كبيرة كوحة وشرحان إن يكون جول استطرت كتشامبيونز ليجا ليفربول مانشستر سيتي بي اس تي كوحة أيقو على عدن الرأي هانتي سيدرت باريس جيرمان أو هيستقى وكم إذا عيارتي الدنيا جوان أكسن iyo tababare aad iyo aad u fahmaya waxa uu doonayo aad iyo aad u garanaya ciyaartooyada tayadooda waxa la dhigi karaa heer ay gaari kartaa xilli ciyaareedkan kooxda Paris Saint-Germain waxay soo galeen saddexdii kooxood ee dunida ugu adkaa saddexda kooxood ay ahaanteeda maanta dunida ugu wanaagsan waxaana garanayaa waan maleynayaa kaliya wad ka sii baxday sawirka toddoba kooxood soo sheegay saddexda kooxood ee haray laakiin sidoo kale horeynayaan baas leedahay kooxda dunida ugu adagtay waan ka dhigayaa kooxda labaad waan ka dhigayaa kooxda saddexaad waan ka dhigayaa kooxda saddexaad waa kooxda difaacanaysa horyaalka wadanka Isbaanishka ee La Liga kooxda Barcelona raay ahaantayda wali waxa ay u qalantay inay taagnaato kaalintaas waliba aan isku hayay waqtiyada kamid ah kooxda Barcelona wali way ka soo degeen heerkii kala qalabsanay marka la eego Tobar Valverde oo kooxda wax badan ka dilay qaab ciyaareedkeeda TikTok imika ay yimaadeen ciyaartooyo aan kooxda anfaacin hadeen ka bilowno Ousmane Dembele Philippe Coutinho Antoine Griezmann xitaa Arturo Vidal aniga ixtiraamaya awoodiisa tayadu leeyahay haddana waxba kama anfaacayo kooxda Barcelona توبركيك سيتين أي كائن لكن توبركيك سيتين وهذه أدو دو تك تاكد يكبد برشلونة على عيارته
haddana weli ma hayno yani qaab ciyaareedkiisii, weli ma hayno kubadiisii, weli Barcelona waxay u baahan tahay Lionel Messi inay heerkan ay soo taagnaato. taas ayay keenaysaa isweydiinta ugu caansan ay dadku isweydiiyaan Barcelona halkee ay ku dambeyn doontaa kadib Lionel Messi. laakiin maanta aynu joogno bishii saddexaad ee 2020 xilli ciyaareedka 2019-2020 oo kooxda Barcelona ay hogaaminayso horyaalka La Liga, oo kooxda Barcelona ay marayso wareegga 16 iyadoo barbara kala soo noqotay garoonka kooxda Napoli. waxaan dhihi karnaa kooxda Barcelona weli ra'yi ahaanteeda waa kooxda saddexaad ee dunida ugu adag waqti xaadirkan. waxa ay labada kooxood dunida ugu adag waa laba kooxood in badan sariinayay, waa laba kooxood ka wada ciyaara horyaalka Premier League. laakiin sida ay u kala horeeyeen, kooxda labaad waa kooxda Pep Guardiola, waa kooxda Manchester City oo ra'yi ahaanteeda aan u arko koox aad iyo aad u wanaagsan, waliba xilli ciyaareedkan aan wanaagsaneyn, waliba xilli ciyaareedkan wax ka qayb qaatay in kooxda aan wanaagsaneyn natiijooyinkooda liidato. waxa weeye yani weynaanta iyo adayga saidka ee kooxda Liverpool. taasna waa wax iska dabiiciya, koox kasta oo adag markay hesho koox ka wanaagsan yani noocan ma natiijooyinkeeda soo dhima, noocan ma qaab ciyaareedkii ciyaartooyada ayaa soo dhima, natiijooyinka kooxda ayaa liidata. waa wax iska dabiiciya, koox kasta oo adag haddii koox ka adag ay timaado khasab kooxda isbedbel ka dareemaya, waayo kooxdan la barbar dhigaya markaas. taasna dhib ay ku keenaysaa, tababarihi ay ku keenaysaa, taageerihi ay ku keenaysaa, ciyaaryahankii ay ku keenaysaa. dhibta ugu weyn maanta Manchester City haystaan waxa weeye joogitaanka Liverpool. waynu ognaa laba xilli ciyaareed ka hor sida ay Manchester City u maamulatay horyaalka Premier League, xilli ciyaareedkii dhaweeto sida ay Liverpool u awoodi kar weydeen inay ka qaado Manchester City horyaalka. laakiin Manchester City weli ra'yi ahaanteeda kadib yani bandhigii aad ka wanaagsanaa, guushii qurux badneed ee ka soo gaadheen kooxda Real Madrid Santiago Bernabeu, waxaad moodaa in ay heleen waayo aragnimadii lagu caayi jiray ama lagu canaanin jiray, inaana waayo aragnimo yani ku filan u haysan tartanka Champions League. guusha ay ku gaadhay Santiago Bernabeu ayaa ku cadeynaysa inay heleen waayo aragnimada oo ay gaadheen heerkii laga doonayay. haddii aanu coronavirus jir lahayn maanta waxaan ka hadlahayn koox wareegisteedii taagan, ra'yi ahaanteeda uma arkay koox Real Madrid koox ka soo noqon karaysay natiijada, laakiin wax kasta way dhici kar lahayd. kooxda koowaad ee kaalinta koowaad ku jirta kooxda ugu adag Yurub ama kooxaha waqti xaadirkan dunida ugu adag wasgaranaysa waa kooxda ku guuleysatay tartanka Champions League, waa kooxda Liverpool. laga yaabaa dadka qaar inay yiraahdaan ma waxaad aragtay dee Liverpool oo yani horyaalka sida uu guuleysanaysa, ma waxaad aragtay Champions-ka, yani waa maxay ku qiimeynaa haddaad qofka diidan maanta Liverpool inaanay ahayn koox dunida ugu wanaagsan ala ay asaas muxuu ku murmaya, yani muxuu murankiisa muxuu ka keenayaa? waayo horyaalka dunida ugu adkaa sida ugu guuleysanaya waan aragnaa in aanay jirin cid hor istaagi karta. tartanka Champions League waan aragnaa inay kooxaha ka yani ka soo adkaadeen gurubyadii, Napoli way ka adkaadeen, Paris Saint-Germain ka adkaadeen, wareegii 16 Bayern, wareegii 8 Porto, wareegii 4 Barcelona, waliba qaad aan caadi ahayn remontada ciyaartii koobkana Tottenham ay ka guuleysteen. yani qofka diidan Liverpool wanaanteeda iyo awoodeeda waa muxuu ku taasoo kaliya doonayaan ogaado. haddii aad ka mid tahay dadka diidan in Liverpool ay tahay maanta kooxda dunida ugu adag, waad igu soo qori kartaa commentiga yani sababta aad ugu malaynayso inaan Liverpool aan ahayn kooxda maanta dunida ugu adag. ku guuleysiga Liverpool ay ku guuleysay tartanka Champions League xilli ciyaareedkii ugu dambeeyay waxa ay keentay inay ku guuleysto sidoo kale Super Cup-kii Chelsea kaga adkaato, waxa keentay inay ku guuleysto FIFA Club World Cup-kii oo ay Carabaha ka soo guuleysatay. imika horyaalka Premier League ay laba talaaboood inay ku guuleystaan kaliya. haddii ay ka baxeen tartanka Champions League micnaheedu ma aha in aanay Liverpool weli aanay ahayn kooxda dunida ugu adag. koox markaynu helno koox ku guuleysto tartanka Champions League laga yaabo inay wax isbedelaan, laga yaabo kooxuhu wax kasta inay isbedelaan, 10 kooxoodna way isbedeli karayaan. asxaabay muuqaalkeena maanta intaas ayuu ku egyahay. haddaad ku cusubtaysana katartada kubadda helowna subscribe taraad gamalka daarto si ay ku soo gaaraan muuqaaladooda ugu dambeeya. haddaad hore subscribe hada falan like saar saaxiibadan la share garay muuqaalada dambana la socda. waxa aad khanka commentiga asxaabiga ugu reebi kartaan 10 kooxood aad u wada ra'yi ahaantaad u wareegtid inay yihiin kuwa dunida ugu adag. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.